بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غيرت قيمها بدن من والبا جوجتان سو دو waxaan rajeynaynaa in maamadii Soomaaliyeed ku sugnayd wadanka Liibiya ayadii iyo caruurteedii oo iyo gabdhihii oo xorriyadeeda dib u helay ayaan rabnaa haatan aan wareysano iyo xaaladeedii sida ay tahay maama way maqlaysaa maama see tahay haye ka waran maama xorriyaddii waa heshay adiga iyo shantiyaada caruur ah oo gabdhihii ay ku jiraan wiilashii ay labada gabdhood ay ku jiraan bal ka war hadda xaaladaada dareenkaaga ka waran ما شاء الله هويو شعبك الصوماليات adduunka ku dhaqan markay arkeen xaaladaadii iyo waliba nolosha aad ku jirto way ku soo gurmadeen Soomaali oo dhan meel walba ay joogto runtii farxad weyn ayay inoo tahay anagana ka dhalinyaro ahaan oo hooshan isku xilqaanay bal shacabkii oo suura galiyay inaad xorriyadaada aad hesho maxaad leedahay واتها ماما hooyo shaqadan shacabka Soomaaliyeed guush iska leh oo hooyooyin u badan oo runtii la dhihi karo lacagahan ayaga ayaa isku soo dardaray oo rag iyo dumar anaga oo kaliya waxaan ahayn isku xiran ahayn dadka Soomaaliyeed oo dhan runtii maama adigoo ah oo hooyo ah qofkii hooyo qof walba dareemi kara doorka ay bulshada ay ku leedahay adiga caruurtaada inaad xorriyad aad heshaan maadaama ragga inta kale meesha ku hartay dhalinyaro ay yihiin oo intoodii badanna waalidiintood ay heleen haddana waxaa farxad ah in maanta caawa aad xorriyadaada aad haysato noloshaadii aad xor aad u tahay meel wanaagsan aad ku nooshahay anagoo runtii kan daqanay cunugan saqiirka ah Soomaaliyeed wadankiisa aan jooga ayaan u danqanay iyo adigoo hooyo ah aan dareemi karno hooyo iyo waliba mas'uuliyadda iyo dhibka aad soo martay hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan iyo gabdhahaagii ka waran hadda qorshahaaga waa maxay hooyo صح وي الله صبرنا وقريب إلا برينا مبارتي سيشيء إلا برينا نحن على الرجينا يا إن شاء الله الرجينا يا فرحتى إذا مو بالسوق وبكرة وحنا عطيني شيء كرا لا هاي فرحتى إذا إساسي صوم هاي ما جرتو هاي كورن هاي كورن الله شماش كوجه هيستي iyo qaabka noloshaas u soo martay bal hooyo dad badan waxay isweydiinayaan adiga iyo caruurtaada sidaad Liibiya ku tagteen bal arintaas wax igaga sheeg qaabkay ku timaadeen halkan qaabka horta aan ku imid hadii aan kaaga warramo kolkii hore anu waxaan joogay Yaman
واقرتي dambe xagga boosaataan mid Ethiopia soo maray wuxuugaa malaha waxa la ii saariyay maaragtay in Masar baad ka shaqaysan oo meel nolol fiican ku noolaanayso ayaad maxaa ku raayay ma rabtaa baa leeyo ma raacaysa sidii baan ku imid adoo iska aftuubahaan waa sidii baan u imid markii dambe halkan aan la keenay ba inta lacag bixi baa leeyahay kadib kala قلوين يا كسوة قلوين سوماليا كسوك حي أو كير شقن كجيني نمصر. والله هوا واحد كاشة أون الدواء هوا سومالي وحويا كاشة أونيا سودانية سومالي كاشة يويا. ملعقد بحسي أو أي كوسوك حي. ما يوحب الله يجمع سوقات. مركات هل كان أي كوكانين وحكوير هذين العكس تسكبحي. وهجاج هاي أديك مركا سيجاج أوي حاجي الله نحرسته مركا شنطان عرور وكليم يا شيء عرور هذه كلا أهل كلا حقي كنولين هاي 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 ويلك يريس كان مقعيس هذا فارس ساتها فارس أبتي ما في عنتها هاي كور أبتي درين كاga عاو درين كاga كور أبتي درين كاga كور محد دريميسا محلو فرح سنة يا أبتي مخلصين أنا كان مخلصين نقني أو بحنا حدا يديك وفي حرية دينا يا شان أبتي وحما عنتي ما أنت وحما عنتي محا عنتي أبتي محا عنتي مركو هر معوني جرت أبتي معوني جرت عنتداس ما شاء الله أبتي وحواي ووينانيسا سوماليا كسوغيسو دادك ديبكا كابحيي قبيل معها سومالي وينا كابحيسي سا أقو أبتي أبتي أنين كومي إلاوي كريس سوماليا ورنها إلاوين قبيل وحكومة قبان أبتي أقو أبتي أبتي dadkaaga iyo dalkaaga ha ilaawin meel walba aad tagto hooyo waxaan rabaa gabdhaha inaan la hadlo gabdhaha ساتها أبشر ساتها أبشر ما في عنتها أبتي هي كور عاو درين كاج يقور أبتي هاي أبتي كور لبكي ماشي كجري يوم ما أنت مركي اللي حراتيهين حرية دينا هاي ستان أو ضد صوماليا دين قرمة ذي مركي اللي جوير أبتي ما حد رنتي أبتي ضد كصوماليات كوسو قرمة ذي محلات أبتي صومالي هاي لاون أبتي قبيل كاغا يو قبيل كلا أو صوماليات وحبا كو مقبن شعب كصوماليات أيا وحكو قبت أبتي أبتي مرول بقرن كاغا نيدا كو هاي صومالي نيدا كو هاي مرول بأبتي قفل بودي باتيسان أد أركتو أقرمو كالمي هاي أباي إدب وعليكم السلام أباي سات هاي مقعة ها درجو كورن عاو درين كاغا كورن هاي كور أمد الصوماليات أو ديبكينا كدن قطي إديكو قبضاء أو ماشا سيكوجرا أيا سورة جلسي إن شعبك الصوماليات أي اسكو تغان
lacagtaas in laga baxsho oo meesha aad ka baxdaan ka war dareenkaaga shacabka Soomaaliyeed maxaa leedahay والله شعب صومال waxaan leeyahay aad mahadsantiin maadaama meesha joogtiin aad idin mahadcelinaya ku mahadsantiin dadka Soomaaliyeed iyagan meesha ku dhibaataysan waxaan jeclahay wax soo qabatiin waxyaalaha kullu yaabka badna aad meesha ku aragtay maxaa kamid ah maxay iga sheegi kartaa والله waxyaalo badan aan ku arkay waligii aniga la qaraacina meesha lagu qaraacay oo la xiray oo biyo lagu shubay oo gargaar loo seexiyay hay abd soo qabowixii soo qaraf jira qow sirbeed biyaha loo sii qaboojiyo oo shamiiska baad loogu seexiyay biyo lagu shubay ma aaminsan tahay xuriyadda maanta aad hesheen inaysan qabiil ka dambaynin oo dad Soomaaliyeed oo ku garanaynin oo Soomaalinimo in lagu gurmaday taa ma aaminsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay hadda soo tahriibaan ee wadankii jooga ee rabaan inay tahriib soo aadaan maxaad kula talin lahayd wallahi inay soo bixina kula talinaya aniga waana insha Allah waan ku waan doonaa dadka inay maadin Liibiya iyo tahriib ay meel loo tahriibay inay soo bixin waad ka waanaysaa ka waran marka asxaabtaada meesha joogto maanta marka lagu sheegay inaad meesha ka baxaysaan maxaad dareentay maxaad istiraahdeen maxay kugu marxabeeyeen bal ii sheeg asxaabta wallahi aad u faraxsan yihiin dadka inta la joog maanta aad u farxeen anaga waliir waa baxayaan dad badan way farxeen maxay ugu farxeen maxay ugu farxeen meesha ku dhibaataysan oo ilmo yar meesha ku haysanay alxamdulillah maanta waan ka baxsaas ugu farxeen وهاجاك waxaan rajeynayaa guul ina gaari doontaan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan aadan ilaawi doonin ayaan rajeynayaa ilaahay waxaan idinkaga baryayaa inaad u soo duceysaan dadkii Soomaaliyeed arintan suura galiyay Soomaali weyn meel walba ha joogtay abaaye kale idib وفيعنا ولا لساتها مقعة هذن عاود رين كورن والله آدي ما شاء الله محد أمسنتهاي كورن شعب صوماليات أي كدن قضي نبكينا إذنكو قبل صوماليات rag ajnabi aad ku dhex jirtaan la dareemi karo wax walba in halka ka dhici karaan hooyo Soomaaliyeed caruurteeda ayagoo rag badan oo meesha ku jira ayaa waxa la yiri fursad hala siiyo hooyada Soomaaliyeed iyo gabdhaheeda dadkii arintan u gurmaday oo aan seexanin oo dadaal badan u galay oo shacabka Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed aabiyaasha Soomaaliyeed ee adduunka joogo dhan maxaad dhihi lahayd maxaad ugu duceyn lahayd aad u mahadsantihiin dhammaantiin Soomaalida idinka xilligiina dhammaantiin oo dhan khayr ilaahay siiyo jazaak Allah khayr aadan abaal u galaa laakiin abaal dadka raba inay soo tahriibaan oo wadankii ka soo tagaan oo rabaan inay soo tahriibaan oo safar dheer ay soo galaan la soo qaldo kuwa maxaad kula dardaarmi lahayd dhibaatooyinkii kugu dhacay ama hooyaha dhibaata loo geysto ama wiilasha kale dadka raba inay soo tahriibaan maxaad uga sheegi kartaa dadka ku daawanaya maxaad uga sheegi kartaa waxaan u sheegayaa oo yani dhibaatooyin badan xitaa dariiqina dhibaato kula kulanay oo la isku kaay xabadeeyay oo baawur xitaa nala gadoomay oo waxaan ku dhameeshii markii nala keenay nagu meesha rabnay oo meel kale nala keenay ماشي كلامك نلا كأنه سيحن يعني صحة كبحنا لو تجري أو سلا ويلا شوكولاتة بربر لو سيحيو حتى حرقنا نقول الحلو تجري الحمد لله وحي ودن هذا إلهي ونوسو برجاري مركو حالي هي آدي بأمها سين دكتي أو أهل الناس كده بتاعي Soomaaliyeed walaalahay ودمها سين
waa hagaag aadaad u mahadsan tahay hooyo igu dhiib hal mar hooyaan rabaa inaan wax ka weydiiyo maadaama hooyo soomaaliyeed ay tahay hooyo ugu dambeyntii dadka rabaan dhalinyarada rabaan inay soo tahriibaan hooyo maxaad baaqa u jeedinaysaa wallahi haddii la ismaqlayo yaa hadal qaadan aan odhan lahaa haba hadal qaadina hadan yeesanina waddo la soo mari karayo iyo wax la hawaysan karayo maaragtay dhibaatada ninkii arkay baa ka sheekay karaya ninka fadhiya waxba kama oga haye marka waxaan dhihi lahaa ha isku imaanina hana soo hadal qaadina waa gartay marka safarka tahriibka waa xanuun badan yahay hooyo waa mahadsan tahay kheyran idiin rajeynayaa soomaaliya oo dhanna waxa waaye garabkiina taagan tahay waxaan rajeynaya inaad guul gaari doontaan inaad nolol wanaagsan inaad heli doontaan ayaan rajeynayaa dhibkaasi dadkao dhan soomaaliya oo dhan ayuu taabtay inaad ka bixi doontaan ayaan rajeynaya dhammaan dadkii arrintan gacanta ka geystay khaalid iyo hawaase oo tiim ka mid ah iyo weliba dhalinyaro kaloo soomaaliyeed oo dhan oo tiim ah oo howshan galay qaarkood muqdisho jooga qaar garowga joogo qaar dibadaha joogo ayaa barnaamijkan u gurmaday oo arrintan inay gacan ka geystaan qaarna yurub iyo maraykanka joogo oo guddi dhalinyaro ah oo arrinta laisku xilsaaray ayaa suuro gashay inay arrintaas suuro geliyaan hooyo guulaan kuu rajeynayaa aadaad u mahadsan tahay nolol wanaagsanaan kuu rajeynaynaa maxaad ugu dambeyntii ummadda soomaaliyeed aad baaq u jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed waxaan baaq u geyn lahaa meel kastay joogaan boorta ilaahay garabkooda allaha galo geliya naxariista garabkooda allaha ka yeelo ka labaad waxaa weeyaan maxad baan u jeedinayaa siday noo garab qabteen ay noo soo xasuusteen ay nooga bixiyeen dadkaa ku jirnay ay nooga soo saareen wallahi aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh faysal salmaan oo adiga ah ummadda soomaaliyeed waxaa intaanaan magacooda garanaya muuqooda arag kulli waad wada mahadsantihiin kulli waad madahadsan ilaa kuwa nala jooga walaalahaya ah kulli waad wada mahadsantihiin hooyo waddanka inuu isbeddel ka dhac mala socotaa oo madaxweyne cusub uu yeeshay intanaan ku maqlay wallahi ma maqal yaa madaxweyne kaha lagu yiri maba maqal ba macnaha intan madaxweynaha dhawaa qofku sii warwareystaa markuu maaragtay niyad u fiican ay u degan tahay markaas soomaaliya kasoo tegaysa yaa madaxweyne ka ahaa may aniga soomaaliya horta waa hore ay u dambeysay been ku sheegay Ha. waa hore ay u dambeysay waan soo maray mooyaane oo waxaa qaaday mooyaane سلمان waa mahadsantihiin hooyo aadaad u mahadsan tahay kheyran idiin rajeynayaa waxaan rajeynayaa in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku cimri qaadan doonto barnaamijkan asxaabta qiimaha badan meel walba aad joogtaan ummadda soomaaliyeed oo dhan aad ayay ugu mahadsan yihiin wax barnaamijkan loo sameynayo ma aha in dhalinyarada kale ee meesha ku jirto ee tahriibka ay ku dhiiradaan ama lasoo tahriibiyo ma aha dadka meesha ku jiro o dhan oo aad u badnaa oo 260 gaarayay marka lasoo bandhigay sawiradooda marka lasoo bandhigay dad ay eheladoodii helay oo wiilal muddo la la'aa ayaa dadkoodii helay dadkooda ayaa haatan arrimahaasi ku jira inta kale oo ugu habboonna markaasi waxa weeye sida ugu habboon iyo in markaasi loo maareeyo waxaan la isku dayay ujeedka ugu heen ama qorshaha ugu horeeya waxaa la qaatay in maadaama maamada ay hooyo tahay ay dhibaateysan tahay gabdho ay meesha ku hayso aan dareemi karno gabdhaha dhibaatada markaasi ay ku jiraan iyo hooyo iyo muhiimadda leedahay iyo tixgelinta ay leedahay hooyo soomaaliyeed ayaa waxaan markaasi suuro gashay ama laysla gartay in hooyada meesha laga soo saaro iyadii caruurteeda oo caruurta weliba aad ay u yaryihiin in meesha laga soo saaro ayaa laysla gartay oo qorshaha ugu horeeyay oo laysla gartay intaas ay ahayd taasina ilaahay wuu suuro geliyay waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadii soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed lacagaha soo diray kasoo diray adduunka dacladiisa qaarkii dadkii soomaaliyeed ee soomaaliya u diray
iyo weliba tiimka kale oo groupka ahaa oo ay ku jiraan asxaab fara badan oo uu ku jiro Khaalid Yare oo dhankiisa lacag ilaa 7,000 gaaraysa iyo wax la jira oo ilaa 600 aan malaynaya aruuriyay Faisal Awaase oo asaga dhankiisa Sweden soo joog lacag ka aruuriyay iyo anigoo Turkiga jooga oo intaas lacag anagana aruuriyay oo lacag marka la isku darayna ay noqotay inaan hooyadaasi aan ku soo furdaamino qolooyinka magafiyaasha waxay taagnaayeen calaa qof 8,000 in laga bixiyo laakiin dagaal badan iyo isjijiid fara badan kadib waxaan go'aansanay shantooda in aan 1,005 15 kun lagu soo daayo ayaa ilaahay suura geliyay alxamdulillah maadaama hooyo waxa dareemi kara qofka damiir leh ayaa hooyo dareemi kara muhiimadda ay hooyo leedahay dhalinyarada meesha ku jirto waxaan uga horumarsiinay maadaama ay hooyo tahay ee gabdho wadato sharafka iyo ciziga iyo karaamada ay mudan yihiin hablaheena Soomaaliyeed ama gabdhaheena Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa waxa suura gelisay inaan muhiimadda koowaad aan siino maamada oo meesha aan ka saarno maadaama dadkooda inta badan meesha ay ku jireen dadkoodii ay heleen waxaa hadda ugu daran ilaa iyo dhowr iyo 58 ruux ayaa ugu daran oo hadda meesha ku hartay ayagana waxaan rajaynaynaa waan isku taxaluujin doonaa wixii markaasi karaankeena inaan gacan ka geysano ayaan markaasi aan isku dayi doonaa dad badan oo damacsan inay soo tahriibaan waxaan u sheegaynaa tahriibka inuusan faa'iido lahayn inay ka joogaan meesha dhibaato badan ay ka jirto aysan jirin cid kaloo meesha tagta oo lacag loo aruurinayo inaysan jiri doonin oo kaliya barnaamijkan waxaan u sameynay in dadku ay arkaan dhibaatada rasmiga ah ee meesha ay ka jirto inay arkaan sidoo kalena markii arrintan aan soo bandhignay warbaahinta adduunka fikir kama aysan haysan waxa rasmiga ah meesha ka jira waxay suura gelisay in wakaaladaha wararka adduunka iyo telefishinada caalamka oo dhan inay arrintan ay qaataan ama ay ka hadlaan ay UN-ka meel walba la gaarsiiyo ayay suura gashay taasna waxay tahay dadaalka tiimka runtii barnaamijkan suura geliyay markii arrintan ay dhacday ayaa waxaan isku daynay inaan isku keeno dhalinyaro fara badan oo wiilal iyo gabdho leh qaarkood Ireland jooga Ingiriiska jooga Norway Mareykanka Muqdisho Garowe Hargeysa team dhalinyaro kooban aan arrintan laga discuss gareeyay ama laga dooday dood dheer kadib waxaa la isla gartay in maamada la hormariyo priority koowaad la siiyo maadaama ay hooyo tahay gabdhaha dhibaatooyin fara badan ay ku dhici karaan waxaan rajaynaynaa inta soo hartayna inaan markaasi aan meesha aan ka soo saari doono si alla sida noqoto waxaan baaq u jeedinayaa ragii iska hadlayay ee dhahayay barnaamijkan dadkan boosaasi joogaan dadkii dhahayay oo warxuma tashiilka ah oo damiirka aan lahayn oo damiir Soomaalnimo ku jirin damiir u danqan waayay hooyadaas u danqan waayay gabdhahaasi Soomaaliyeed u danqan waayay caruurtaasi yaryarka ah ee runtii u danqan waayay ayaan waxaan u sheegaynaa in tahriibka magafaha dadka uu haysto lacag kaliya fiirinayaan laakiin ma fiirinayaan sumcadda iyo sharafka ay leedahay gabadha Soomaaliyeed sharafta ay leedahay iyo hooyada Soomaaliyeed sharafta ay leedahay waxay ka doorbideen lacag nin qaadanaya ka doorbideen lacag micna ma sameynayso muhiimadda koobaad waa sharafka ay leeyihiin gabdhaheena Soomaaliyeed gabdhahaasi Soomaaliyeed aad aragteen oo halkaasi joogay oo dhibaato walba ku dhicisay ayaa anagana danqisay wayna danqisay oo xanuun ayay nagu reebtay markaan aragnay maadaama ragga meesha ku jiro dhan ay dhalinyaro u badan yihiin laakiin marka la fiiriyo birimageeda hooyo iyo caruurteeda oo gabdho ay ku jiraan oo laba cunug oo yar oo saqiir ay ku jiraan qofkii ka danqan waayay waxaan leenahay dhiig ma lihid dhiig Soomaaliyeedna kuguma jiro marka intaad ka fikirayso waxaan micno lahayn oo isleedahay magafa lacagtan lagu maalgelin waa marka ka fikirayso goormuu tahriib ka bilaado Soomaaliya imise ilaa hadda way tahriibaysaa barnaamijka kooban si hooyadaasi Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa maadan ka fikirin alxamdulillah ilaaha mahad iskale shacabka Soomaaliyeed waa la gaaray hooyadaasi banaanka ay taagantaa caawa xorriyadeeda haysataa cunto nadiif ay cuntay kuwa kalena meesha joogo arrintu sida u bilaabatay lacaga loo diraa oo cuno fiican ay cunaan inta meesha ay ka baxayso sidoo kale waxay arrintan ay suura gelisay dad muddo kala la'aa qoysas isla'aa caruurtoodii la'aa inay caruurtoodii ay helaan markii sawirada aan soo bandhignay inay helaan dadkood in la helo dad tacsi loo dhigay dhalinyaro tacsi loo dhigay oo laga quustay ayaa dadkoodii helay
inay is arkaan oo telefoon ay ku wada xiriiraan ayaa suuro gashay 260 kana intoodii badan meesha way ka baxayaan laakiin hadda inta ugu yar ee dhibaatada haysata waa 58 ruux oo dhalinyaro ah ayaa meesha dhibaato ku haysata marka waxaan u sheegaynaa kuwa inay Facebook live habeen walba iska soo galaan waxyaalo aan micno lahayn oo bulshada aan wax u soo zaaidinaynin energy badan iska bixinaya ayadoo bil Ramadaan lagu jira dadka aflagaadeynaya qabiil iyo qabyaalad ku haya dadka caawinayana inay isku dayaan inay war xumata shil ay ka sameeyaan waxaan leenahay cid idinka yeelayso ma jirto dhalinyarada Soomaaliyeed inta wanaaga jecel ayaa kacday dhalinyarada Soomaaliyeed intoodii wanaaga jecel ayaa istaagtay 2 qofood iyo 3 qofood iyo 4 qofood iyo 5 qofood oo cashir ama yani ka dhigtayba inay magac ku raadiyaan qabiil la caayo oo qabyaalad la caayo wanaaga oo dadka Soomaaliyeed aan u danqan waxaan leenahay waqtiyuusan idin kaga dhumin habeen walba aad Facebook live aad soo fariisataan oo waxaan micno lahayn aad sheegtaan arrintan markaan soo bandhignay waxa xiriiro kala gedisan la soo sameeyay Human Rights Watch UNHCR IOM warbixinadu way haystaan warbaahinada caalamka oo dhan Al Jazeera The Guardian Observers of France 24 oo maanta ugu dambeysay warbixin ka soo saaray iyo wakaaladaha kala gedisan adduunka ay arrintan ka hadlayay ma aysan ogeyn laakiin dadaal far badan oo aan sameynay ayaa waxay arrintan ay ku suura gashay in la ogaado xaaladda rasmiga ah ee meesha ka jirta qoysas kale oo u dhashay wadamada Ethiopia Sudan Nigeria Niger oo Afrika kamid ah ayaa dadkoodii ogeyn meel ay ku nool yihiin laakiin anaga ilaaha noo suura geliyay inaan dadkaas aan ogaano waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay meel wanaagsan ay ku dhamaatay dadkii lacagahan isku soo daray oo runtii aniga iskayga waxa ay soo gaartay 5,000 oo lacagan aruuriyay qaalidna 7,600 Faisal Hawaasana wuxuu aruuriyay lacag gaaraysa 2,600 ayuu aruuriyay marka lacagaas marka la isku dardaray oo dhan oo lacagta diristii wixii laga wada jaray waxa gaartay 15,232 dollar ayaa gaartay waxaana lacagtaasi fududeeyay in la gaarsiiyo team anaga aan abaabulnay waxaan u mahadcelinayaa teamkeena oo guddiga ah Maxamed Ali Siyaad iyo Sara Badri oo arrintan maanta fududeeyay oo saake soo kalahay oo lacagtaasi sidii la rabay u meelmariyay kadibna markay meel mariyeen nala soo xiriiray yiri lacagtiisa waa dhamaynay kadibna aan la hadalnay aan hooyada iyo shanteeda banaanka keena lacagta kala dheeraadka ahna oo 232 dollarna dhalinyarada meesha ku jirtana cunta loogu sameeyo yaan la garaacin hadda kadib yaan waxba loogu sameeynin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa marka wax guul walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u sugnaatay kuwii shalay ku hayay meeshan waday noqonaysaa dariiqad ay noqonaysaa arrintan waxa la rabay dawlad inay qabato laakiin waan ognahay dawladeena dhibaatooyin fara badan haysta dadaal fara badan haysta waxyaalo badan haysta dawladda lagu sheegayna 2 qofood iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ma aha dawladda lagu sheegay waa shacabka qof walba hawsha kaga aad dadkiisa iyo dalkiisa meesha uu ka gaari karo inuu ka qabto laakiin inaad shacabka aad ku soo kordhiso qabyaalad iyo qurun iyo balaayo iyo waxaan loo joogin runtii cid ka yeelayso ama cid idinka yeelayso hab yaraatee ma jirto maanta waxa farxad inoo ah in hooyaday la mid ah gabdhaha ila dhashay la mid ah wiilal yar yar oo wiilasha ila dhashay la mid ah oo idinkan ay sidoo kale ay yihiin inay caawa ay nolol fiican oo xuriyad ah ay haystaan 15,000 wax ay tahay malaha waxa ka muhiimsan sharafka iyo sumcadda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ayaa ka muhiimsan iyo sharafka iyo sumcadda ay leeyihiin gabdhaheena Soomaaliyeed sharafka iyo sumcadda ay leeyihiin hooyooyinkeena Soomaaliyeed sharafka iyo sumcadda ay leeyihiin jiilkeena yaryarka ah ay leeyihiin ayaa ka muhiimsan caruurtaas iyo hooyadaasi ma aysan caawin qabiil ma caawinin qabiil mu gargaarin oo lacag kuma bixin waxay ogaan doonaan ama waxa ay cashir ay u noqonaysaa caruurtaasi markay weynaadaan dhibaatadan oo runtii qalbigooda ku taal in ay u mahad celin doonaan shacab Soomaaliyeed
oo ay abaalkaas ay u gudi doonaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ha jooge waxayna runtii ay si gaar ah ay u amaani doonaan ummadda Soomaaliyeed oo runtii barnaamijkan isku xilqaamay hooyooyinka Soomaaliyeed oo lacagtaas ayadoo wax ka dhiman hooyo Soomaaliyeed oo joogta Mareykanka joogta ayaa lacag 1600 nagu soo biirisay hooyo kale joogta Ingiriiska $1 ay soo dirtay hooyo kale oo Canada joogtana $1500 iyo wax la mid ay soo dirtay qaar $10 ay soo direen qaar waxay soo direen $100 lacagtaasi subax walbo aniga waa kacayay xawaaladahan wareegaynay lacagihan soo qaadaynay qaalid oo jooga Ingiriiska London oo wareegayay Faisal Hawaaso Sweden jooga Sweden wareegaya wixii marka la isku keenay oo dhan mas'uuliyadeeda anaa qaaday ana waxaan ku yir lacagtaas oo dhan anaa mas'uuliyadeeda qaadaya igu soo wada wareejiya waa la igu soo wareejiyay aniga waxaan wakiishay Sara Badriyan wakiishay iyo Maxamed Ali Siyaad oo Muqdisho jooga ayagan u dhiibnay lacagtii ayaga ayaa sidii ku furdaamiyay alxamdulillah waxaan u mahadcelinaynaa tiimka kale booska oo xamar joogo iyo waxaan kale u mahadcelinaynaa Ibrahim Muuse Dahraan oo asagana Garowe joogo iyo tiimamka kale oo dhan oo ayagana Norway Mareykanka iyo Ireland kala joogo dhan oo arintan gacan ka geystay iyo fanaanadeena weyn Hibaaq Mandeeq aan iraade oo Switzerland joogto ayada arintan nutrikeeda groupka nagu la jirtay oo habeen walba aan ka discuss gareynaynay fikro iyo waxyaalo fara badan intaan oo kaliya oo dhalinyarada ah waxaan wanaagan dhan aan u sameynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed la ogaado inay yihiin cududa ama awoodda ama xoogga dhammaan marka loo fiiriyo wadanka inay badbaadin karaan dad la haysto dad dhibaataysan inay badbaadin karaan kuwa habeen walbo xumaanta la soo taagan ayda qabyaalada qabaa'ilka Soomaaliyeed caynaya marba qabiil caynaya mar madaxdii ul amrigeena ah caynaya mar dadka ku xad gudbaya mar caawinta dadkan la daryeelayo la caawinayo xumaan u bedelaya waa kayay hal qof Soomaaliyeed dibka ka saaran am ha caawiyaan hal qof Soomaaliyeed inay isku tagaan dadkooda meeshaas waxa ku hartay konton iyo 8 ruux ku hartay kuwa qabyaalada habeen walba Facebook la soo taagan kontonka 8daas ruux ha caawiyaan waxa taraan ma tiri karaan waxay sameyn karaan male laakiin aan isku duubnaano hore aan u socono waan guuleysanaynaa shacabka Soomaaliyeedna wanaaga iyo dawladnimada waxaan rajeynayaa in la xoojiyo dawlad ay wax ku noqon karnaa hore ayaan u socon karnaa walaalayaal waxaan rajeynaynaa inaan hore u socono ayaan rajeynaynaa kuwa warxumo tashiilkana yaa waqtigiisan idinkaga dhumin ahmiyad hasiinina idinkay wax idinku yihiin haddaad 24 saac daawato xumaanta aad daawato qarankaaga uma helin shacabkaaga uma helin xumaanta ayaa u helisay inta dhageysanayso aflagaadadaas iyo caayadaasna dambiga ku soconaya marka waqti hasiin oga bax kaligiis qofka daldalma san rajeynayaa hadalka waa dheereeyay waxaan aan ilaahay aan kaga baryayaa shacabkii Soomaaliyeed maanta ku shahiiday weerarkii arxandarada ahaa cadowga ay ku sameeyeen shacabkii Soomaaliyeed inuu ilaahay jannatul firdaws inuu ilaahay ka baraabiyo kuwa dhaawacmana inuu ilaahay caafimaad degdeg ah inuu ilaahay siiyo dibka lagu waaro waa laga bixi doonaa Soomaaliya way kici doontaa wanaaga iyo khayr iyo barwaaqo ayaa ka dambeyn doonta inaan isku duubnaanana waa muhiim waxaan rajeynaynaa in mar walba dhalinyarta gudaha joogta wadanka joogta iyo kuwa dibadda joogtana in mar walba hore loo socdo ayaan rajeynaynaa qeyran idin rajeynayaa hore ha loo socdo waa la guuleysan doonaa alxamdulillah wixii kale oo aan isku dayi karno in hooyooyinkaasi ama caruurtaas kale dhalinyaradaasi kale ee meesha ku jirta ee 58 ruux gaaraya waxaan isku dayi doonaa wixii tabarteena markaas inaan anagana markaas aan isku dayno cidii wax ku caawin karto inay ku caawiso waxaan idin rajeynayaa marka Ramadaan Kariim Laylatul Qadr inuu Ilaahay nala kula siiyo sharta iyo shaydaanka iyo kuwa xumaha wado inuu Ilaahay naga qabto
waxaan aaminsanahay idinka magac u yeelaya dadka waxaan micno lahayna magac lagu raadinaya waxaan micno lahayn oo qof wariinimada ma aha yani wax in Facebook live la soo galo wixii la rabo la sheego taas shaqo wariin ma aha wariinimada waxay u baahan tahay barasho iyo cilmi ay u baahan tahay atakisa leedahay shuruuc ay leedahay ixtiraam dadka aad ka hadlayso mararka qaar muhiimad ay leedahay wadankaaga ahmiyad gaar ah inaad siiso leeyahay shacabkaaga inaad muhiimad gaar ah inaad siiso wax shacabkaaga dhibayo dadkaaga dhibay inaadan ka hadlin mararka qaar waa muhiim laakiin in Facebook live la soo fariisto wixii la rabo la sheego oo runtii magac laga raadiyana wax wanaagsan ma aha marka waxaan rajaynaynaa in hore loo socdo hooyadaasi maanta banaanka taagan tahay bari ku kala banaanka tagi doona bari ka maalin nolol wanaagsan markay helaan qabiil uma ololeen doonaan waxay u ololeen doonaan Soomaalinimo Soomaaliya ay u kici doonaan Soomaaliya ayay u kici doonaan marka dadkaasi ahmiyad yaa la siinin markay live yihiin oo xumaan ay ka sheekeynayaan qabyaalad ay ka sheekeynayaan qurun ay ka sheekeynayaan oo aysan damiir danqada aysan lahayn ma dareensana ma oga waxyaalaha qaar marka idinku ahmiyad ha siinin qofka waqti ha ku dhumanin juhdi ha gelin ha daawan ka danayso hoola kale ka qabso iska cibaadeyso ha ogaado asaga in la nacay ha ogaado wadankaaga u hiili wadankaaga hadaadan ugu hiilin karin waxyaalaha qaar waxyaalaha xumaanta ah ha daawan wadankaaga aflagaadidiisa fiirsan madaxdii lacaynay ha fiirsan mucaaradnimo lama dhaho waxaasi wariinimana lama dhaho qofka inuu magac wariye soo qorto wariye lama yiraahdo sidaas wariye laguma noqdo wariyaha waxay u baahan tahay sharci iyo kala dambeyn iyo ixtiraam iyo barasho iyo cilmi u baahan tahay carabtu waxay tiraahdaa la shayquuqata 5 ayaam 5 bari sheekh laguma noqdo marka in qurba la tagana wariye laguma noqdo kuwii wariyaashii oo la yaqaanay way joogaan gudaha wadankay joogaan kuwa ka shaqeeya oo wanaaga ka hadla ayagoo xumaan sheegay ma aragtay ayagoo qabyaalad ka hadlay ma aragtay may qof aan wadankii joogin oo meel kale jooga 4 qabyaalad la soo taagay marka waxaan leenahay waa ku hortaaganahay waa ku fiirinaynaa waxaad qorayso waxaad soo dhigto oo dambi ah galayso qaabka oo u saxsan oo runta ah ayaan shacabka u sheegaynaa dadkayna waa caawinaynaa habeen wanaagsan guulan idin rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ha jooga ha guuleysto fadliga 10 dambe bisha barakaysan ilaahay fadligeeda hana siiyo hore ha loo socdo halis saacid halis kaalmeeyo intii hooyada Soomaaliyeed lacagaha ku darsaytana qeyr Allah siiyo si niyad ah ay ugu duceysay hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteeda ayaa runtii meel cadow jooga laga soo baxshay sharaf ay leeyihiin hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qof walbo lacagtaasi wax ku darsaday qeyr idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh